السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا ميل والبا وديك داونيسان يسي والبا ومركا عادي مغليسان با مقال كان مانتيتو waxaan doonayaa inaan aynu bal ku dul istaagno qodobadii ugu muhiimsanaa qodbad ka soo yeertay Xasan Sheekh Maxamuud maruu ka hadlayay shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika qodbad uu halka ka jeediyay runtii noqotay qodbad umada oo dhan ay si adag marka ay uga falceliyaan waxyaalo la yaab lahaana marka ay ku jiraan ayaan falanqayn doonaa qodbadaasi guud markii aad fiiriso message-keedii laba fariimood oo kala duwan ayuu dirayay Xasan Sheekh Maxamuud mid wuxuu u dirayay Itoobiya mid wuxuu u dirayay shacabka Soomaaliya midna shacabka Itoobiya u dirayay waxa la oran karayaa shacabka Soomaaliya wuxuu u soo diray fariin runtii ay aad uga niyad jabaan buuq badanna ka dhalisay baraha bulshada dhanka kale tona wuxuu shacabka Itoobiya u soo diray fariin marka ay ku seexdaan oo aad moodid inuu marka qoora salaaxayo bal qodbadaas ayaynu marka falanqayn doonaa soo dhawaada meel walba joogtaan iyo si walba oo marka aad maqlisaanba qodobka ugu horeeya uguna muhiimsan oo hadalka ku jiray qodbada ah ayaa wuxuu ahaa wuxuu yiri Itoobiya iskuma hayno inay badeena soo gaartay in kale iskuma hayno waxaan isku haynaa si Itoobiya ay u gaari lahayd badeena ayaynu isku haynaa mana jiro dagaal naga dhaxeeya annaga Itoobiya oo badda ah ayuu yiri kaliya waxa meesha yaala sidee Itoobiya badda ku gaaraysaa da process kaas ugu isku diidana laakiin Itoobiya inay badda gaartay warna dagaalna ma jiro ayuu saacad yiri bas bariyahan dambe wadankan dariska anay Itoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda iskuma haysan annaga Itoobiya inay badda gaarto iskuma haysan dagaal naga dhaxeeya annaga Itoobiya oo Soomaaliya Itoobiya ay bad u diidan tahay ma aha waxaan isku haysanaa waxay tahay Itoobiya siday badda ku soo gaaray hadalkaas marka uu Xasan Sheekh Maxamuud maanta ka sheegay fagaaraha caalamiga ah wuxuu meesha ka saarayaa khiyaaligii iyo beentii ummadda uu ku seexinay isla asaga Xasan Sheekh Maxamuud oo uu masaajid ka soo dirayay ayuu beenaynaya hadalkiisu beenaynaya maanta markaysa wuxuu Xasan masaajidka ka yiri isbahaysiga maalin jimca ah Itoobiya waa cadawga koowaad maxaa lahayn buu yiri al-shabaab cadawga labaad Itoobiya noqday buu yiri dhulkeena inay maanta nagu soo hunguriyeysana ma ahayn ayadaa ahayd buu yiri inaan dhulkii ay hore nooga qaadatay markaasi aynu ka raadsano waxaan u sheegayaa cid walba sheekh iyo shariif cid walba inay diyaar garoobaan oo dalkooda difaacaan masaajidku halka ka jira haddii maanta dhul la isku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheegano Itoobiya annagay tahay Itoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadu inaan dhul nagu sheegata ma aha naguma sheegan karto intaan ka sheegna cadawaa hal waa shabaab maanta waa labo waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay shabaabkana waa iska celinaynaa duulimaadka dibadda ka yimaadna waa iska celinaynaa intaba waa isaga filannahay ninkii qaba inaanu isaga filnayn ka kacan lena hurdada waa hurdo haysaa waa isaga filannahay waana isaga filnaanayna marra badan ba waxaan iri ninkaan waxa lagu laabtay diintiisa hata iswaafaji adag marka hadalkii masaajidka laga sheegay Itoobiya waa cadow Itoobiya walaalahan say bad u gaareen iskuma hayno Itoobiya ayaba hayd inaan dhulkii naga qaatay ku qabsano isku aadi qodobka waxa lagu xila sheegay badan difaacina dalban difaacina oo dhan caawa ka shin baa lagu soo qodobka labaad oo qodobada ku jiray wuxuu yiri waxaan Soomaaliya caalamka u sheegayaa haddii Itoobiya ay doonayso ama ay rabto inay badda soo gaarto Soomaaliya waa soo dhaweynayna wuxuu inta ku daray inay u soo gaarto sida ay badda Kenya u soo gaartay Uganda sida ay Suudaan u soo gaartay Kenya sida Itoobiya naftirkeeda ay u gaartay badda Djibouti isla sida uma doonayna buu hadalkaas waxaan isleeyahay waa hadal aan nuxur lahayn wax miisaan ah oo kor loo qaadi karana aan lahayn anugu isdeed jirka ee Soomaaliga xataa lagu seexin karayo sababtuna waxay tahay Uganda iyo meesha loo yaqaano iyo Kenya dagaal badeed kama dhaxeeyo dagaal suuxdin oo ka Itoobiya naga dhaxeeyana kala ma dhaxeeyo
سو السودان يا كينيا وحنا إثيوبيا نقدر حياة لوكا إنه كلا يصير تاريخنا ما أحمرين جيبوتي أنا نقدر قاعد وضل عصب لكن أنت أي دولة نمط النقطة يجي إثيوبيا وحنا أحمرين marka kiiska Soomaaliya kiiska Itoobiya wax ka dhaxeeya kiisaskaas kale to irrelevant u noqonaya shughul isku mala waxa la barbar dhigi karaa oo kaliya haduu oran lahaa alla ilaahay isku dhow yihiin Itoobiya orda casmaraha ka soo qaadata bad waxa uu ogolaatay Eritrea kuwa ba kala go'ayo dagaalkana dhex marayo de orda u doonto kuwa sida ay Itoobiya iyo meesha loo yaqaan Eritrea aysan ganacsiga u wadaagi karin oo kaleeto oo dagaal taariikhi ah oo xuduudeed uga dhaxeeyo ayaa naga Itoobiya nooga dhaxeeya dalkaas la oran karaya hadii ayagu siiyaan nagana oo ogolaan karna ganacsi kaas la oran karaya waa loo barbar dhigi kara laakiin dalkan oo kale dagaal ka dhaxeeyo iyo dagaal is haysta ma iyo dal dooni isbabaan ma waxa kale la yaab leh Itoobiya ma afku xasan kaga qodyeynaya kala ma taqaana qaabka kuwa kale nolol jooga Itoobiya waxay public u tiri badan qaadanaan doonayna intaan ka dabadnaan ma ahaanayno xoog iyo xeelad baki aan ku qaadan karna ku qaadanaa caadi yiraahdo qofkan marka ana kala garanayno xanuunsan caafimaadka qaba ee sheeganaya ummadda madaxweynaha u yahay waxa uu ula hoos ordayo haddaad gaaraysaan waa idin ogolna maxay tahay ninku haya xoog baan ku qaadanaya inaad qoora salaaxaysa waa daciifnimo weyn waa maqaam aysan ummadayada Soomaaliyeed iyo badayada aysan geynin weyn dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Itoobiya hadii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynayna waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaartaan laakiin waxaan isleeyahay inuu ka hoggaan noo noqdo ama uu sheegtay inuu hoggaan noo yahay runtii waa istaahilaa qodobka saddexaad oo ninkan uu ka hadlay wuxuu yiri waxaan diidanahay uu yiri in la jahwareeriyo shacabka Itoobiya asaga diidan shacabka Itoobiya in la jahwareeriyo harabnaa wiira shacabka Itoobiya uu sheego inaan waalanahay isla markaasna aan u diidanayn inay hadday bada soo gaariyaan aan soo gaaraan wax dagaalna uusan jirin ayaa shacabka u sheegayna waa walaalaheed ma rabno in la jahwareeriyo warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahwareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahwareerinin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahwareerinin ra'yiga ummadda Itoobiya ee dariska nahay shacabka Itoobiya iyo shacabka Soomaaliyeed darisaan nahay ismaanaan dooran shalayna waan ahayn maantaana berino aan ahaan doona laakiin inay jahwareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas laakiin kuwii kale Soomaaliyeed ee uu sheegay inay madaxweynuhu u yahay ayuu jahwareerinaya su'aashii aan asbuucii hore idin weydiiyay ayaa weli taagan marka weli kaan ayuu matala iyo waa foreign agent ee kan Soomaali matala intii uu haddana mar labaad isku cadaynaya waxyaabaha kale oo la yaab ka lahaa oo qodobada ku jiray dadku ay sida xoog galeen marka ay uga gilgisheen ayaa waxa ka mid ahaa wuxuu xaqiray halgankii dheeraa ee loo soo galay badii Soomaaliya oo marka ay Kenya damcadeen hore u boobto wuxuu yiri wax dagaal ah oo dhacay ma jiro tusaale biis ah oo fudud oo macaan ah aan u soo qaato wuxuu yiri Kenya ayaan dhawito halka ay daliiginta xariiqintu ay marayso xogaa yar muran marka si reer magaalnimo oo xadaariyada baana waan isqabsan tartiib aan u tagnay maxkamadda tartiibna kala baxay maanta tira walaalana وهذا وقف يمل كودع كوي هي دولة دي كأشرب تأسير كهرسي هو جامعها وها مدحونه الشعب كوي شعلاية محمد عبد الله فرماتشو يدتك كلا دوراء الصوماليات أقويها مدى يلا يرهضا الشعب الصوماليات المدة بدن قربها يربحين تقتلنا
in badooda ay dib u helaan oo aan muran la gelinin effortkii iyo xooggii iyo dhaqaalihii iyo dhiiggii wiilashii Soomaaliyeed ee ku dhintay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya markii ay caloosha u shaqaystayaashii Kenyanku ay soo direen ay marar kala duwan duulaan ku soo qaadeen degmada madaxa ee gobolka Gedo waxa soo dhan ayuu ninkaasi caaw ku shubay biyo wuxuu ka soo qaaday insa waxba dhicin wixii qof oo dhintay waxba dhimanin duulaankii Kenya ay soo qaaday lagu soo duulin buu yiri dhaqaale xoog badnaay ummadda iyo dalka ka baxay waxba dhicin buu yiri halgan ay Soomaaliya gashay oo dhowr iyo 10 sano socday ayuu ka soo qaaday xiiraan waxba ahayn markii aan dariskeena isfahm weynay مثلا annaga iyo Kenya ayaa bari xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduudii maadaama aan hore loo calaameen badda meesha ay marayso waataan isku qabanay waa ka wada hadalnay markaas afgar weynana maxkamadda caalamka tagnay sida ilbaxnimo ah ayaan loo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiiba ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaye عارف مركز عم بدي بدي نحسوسيه مالكي بدأ الصومالية أي لا حكومي ولي واحد نلاقي قصة قرب نلاقي قصة وICJ إنه حكومتي هذا الكي وشيدي بحولي هراء الصومالية محمد عبد الله فرماتشو لبا ميلاد وكلية كفيرنا ياخد بدأ سوي نرد قيبت عن كفيرنا بحولي بحولي هراء الصومالية حول شيء هل كي يدي بعتلي يسكدي كينيا الله صومالي ninkii markaa xilliga madaxweynaha ahaa badal xukuminayay dagaalka uu tirada badan u galay level walbana Kenya la gaaray dagaal walba ilaa safiiriin la kala qaatay meel walba isla gaaray ayaan bal iyada ka sii deynaya bal inuu sheego wixii xilliga Kenya ay Soomaaliya isku hayeen balan dib u xasuusano Soomaaliya waxa ma xasuustay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta na gaarsiiyay guushan taariikhiga ah iyo mira dhalka halgankii dheeraa ee dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u galeen xaqiijinta kiiskii sharciga ee lagaga hortagay damaca hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ku sheegtaan qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed wuxuu ahaa halgan cadaaladeed oo ku astaysan aragti fog aqoon durugsan dhiiranaan wadaniyad ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dalka iyo dadka waxaa guuleystay xaqa waxaa guuleystay sareynta sharciga guushan waxaa leh shacabka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dawladda ay doorteen mar walba oo ay shacabku ku midoobaan wadaniyadda una midoobaan difaaca dhulkooda waa kan maanta oo kala ah oo aan ku joogno guul noo soo wada hoyatay waxaan kaloo idin xasuusinayaa xasan maantito halgankii ay dawladdaasi gashay waxa kama jiraan buu ka soo qaaday laakiin farmaajo maalinkaasi qaybtii uu xasan sheekh maxamed ku lahaa in badda dacwada kiiska badda la geeyo si raganimo leh ayuu u sheegay oo wuxuu yiri waan kaga mahadnaqaynaa doorkii shariifka lahaa ee madaxweynihii hore Soomaaliya walaalkay xasan sheekh maxamuud uu ku lahaa wuxuu muujiyay inuu dagaalkaasi halgankaasi uu qayb ka ahaa waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay xasan sheekh maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya sidoo kale waxaan ammaanayaa ama aan ammaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba mudan qareenadii iyo khubradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeena oo ay ugu horeeyaan abukaat Muna Sharmaan iyo Allah u naxariistee injineer Maxamed Umar Saalixi oo aad iyo aad uga haminayay ama hamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama u ahaado miraha dadaalkii uu galiyay kiiskan waxaan idin xaqiijinayaa in shakhsiyaadkan aan xusnay ay baal dahaba ka galeen taariikhda dalkeena xasanna maantayto wuxuu biyo ku shubayaa uu leeyahay halgan ma jirinba markii aan
dariskeenna isfaham weynay matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduuddi maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay marayso waataan isku qabanay waa ka wada hadalnay markaas afgar weynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana loo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiiba ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaye markaysa waa farqiga u dhaxeeyo way intaasaan ku soo koobaya intii dib isaga soo laabanayna waxaan ka tagay nabadino. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.